السلام عليكم dhammaan asxaabta qaaliga ah ee ku xidhan channelkan aad baan idin salaamayaa mar kale iyo kusoo dhawaada Raacday Academy waxaan halkii ka sii wadaynaa casharradii taxanaha ahaa ee la xiriiray culumta diyaarinta buugga qalin jebinta oo si gaar ah casharradan jeclaan inay ka faa'iidaystaan ardayda ku jira qalin jebinta gaar ahaan undergraduate studentska kulliyadaha kala duwan ku jira ayaa waxaan halkan jeclahay inaan ku siiyo maxaa la dhahaayay fikirro guud inay ka qaataan ama skills iyo muhiim ah oo ay u baahan yihiin xilliga ay diyaarinayaan test-kooda. Haddaba haddii aad ku cusub tahay channelkan oo ay tahay markii koowaad ee aad soo booqato fadlan ha ilaawin inaad subscribe saarto sidoo kale inaad gambaleelka taabato si aad ula socoto casharrada dambe ee taxanaha ah haddii ay ku qanciyaan weeye way fiicnaan lahayd sidoo kale inaad subscribe saarto kadibna aad shareta ku xigsiiso oo aad la wadaagto dadka aad leedahay ama jeceshahay inay u baahan yihiin aqoonta aan halkan ku kala faa'iidaysanayno. Marka maanta waxaan doonaynaa inaan halkan kaga hadlo dhowr qodob oo run ahaantii muhiim ah. qodobada aan doonay halkan kaga hadlo waxa weeyaan waxa loo yaqaan data collection instruments oo marka la joogo cilmiga researchka iyo thesis-ka ay tahay inuu ardaygu aqoon u yeesho weliba ka hor thesis-ka ay tahay inuu ardaygu aqoon u leeyahay instrumentska muhiimka ah ee xogta lagu soo ururiyo marka aad data collectionka bilaabayso. Marka haddii aad qualitative research isticmaalayso iyo haddii aad quantitative isticmaalaysaba waxaan jeclahay halkan ku soo ururiyo afar instruments oo badanaa aad loo isticmaalo designada kala duwan ee researchka aad loo isticmaalo oo very important ah. Haddaba waxaan doonayaa marka hore inaan halkan ku qeexno maxay tahay data dabeetana aan eegno noocyada datada ee qofka cilmi baaraha ay soo ururinayo iyo astaamaha ay kala leedahay inagoo u kala eegaynaa inta badan kuwa ay isticmaalaan social science baan eegi doono. Then waxaan eegaynaa waxyaabaha loo kala yaqaano primary and secondary data laba qodob oo laba fikir oo la kala yiraahdo ayaynu kala eegaynaa oo datadii aynu kala qaybin doono. Dabeetana waxaynu eegi doonaa toolska xogta lagu soo ururiyo tools ama instruments of the data ayaynu eegi doonaa. Datada haddaba waxaan what is the data waxaan doonaynaa marka hore horta bal inaynu isla qeexno marka researchka la joogo maxaa la yiraahdaa data ama maxaa la yiraahdaa information ama xog maxaa la yiraahdaa. waxaa laga yaabaa qof kasta marka uu chapterka saddexaad soo dhaafo inuu u diyaar garoobayo sidii uu u soo ururin lahaa data collection uu samayn lahaa oo xog u soo ururin lahaa xogtaasi oo ma garanaysaay ku base garaysan researchkiisa ku base garaysan ama maxaa la dhahay parameters uu qaatay ee uu doonayay inuu ka diyaariyo conclusions uu ka sameeyo ku base garaysan ama environmental studies ku base garaysan. haddaba any data marka la joogo researchka waxyaabaa loo yaqaano waxaa kamid ah waxa weeyaan waa facts inta badan waxa weeyaan waa xaqiiqooyin cilmiya kuwaasoo researcherku ma garanaysaay uu ka soo diyaariyey study environmentkiisa waxaan uga jeedaa yani researchkiisu objectiveska uu ku base garaysan yahay ama research parameterska ama maxaa la dhahaayay research scopekiisa ku base garaysan. marka xog kasta oo ku base garaysan ama xiriir la leh research questionkaaga ama hypothesis-kaaga xiriir la leh ama si kaleba haddaan u dhigo objectives-kaaga xiriir la leh ama research questionskaaga sub research questionkaaga xiriir la leh datada noocaasa oo aad doonayso inaad kaga jawaabto hypothesis-kan ama research questionka aad qaadatay ayaa waxaa loo yaqaanaa data. marka wayna farbadnaan kartaa wayna dhexdhexaad bay noqon kartaa wayna yaraan kartaa. marka any data waxa weeyaan waa in data kasta magaca way wadaagi karaan laakiin waxaa laga yaabaa in researchyada kala duwan uu mid waliba leeyahay tool gaar oo lagu cabiro yani tool gaar oo lagu cabiro taa macnaheedu waxa weeyaan area kasta waxay leedahay tool lagu cabiro toolkaasi waxaa cabiraya oo la isticmaalaya waa data laga soo diyaariyey oo ku base garaysan researchka aad isticmaalayso. waxaa markaa meesha ka baxaya wax kasta oo aan ku base garaysnayn area aad ka hadlayso ama maxaa la dhahaayay scope-ka uu focuskaagu saaran yahay researchka ka diyaariyay. sidaa daraaddeed waa inaad mar walba maskaxda ku haysaa
in wax kasta oo cilmi baaris ah ama aad research ka samaynaysa uu leeyahay tool lagu cabiro. Marka waxaa muhiim ah markaad questionnaire-ka diyaarinayso inaad ogaato area-dan aad ka hadlayso toolasha lagu cabiraa maxay yihiin ama maxaa u ah yacni mustanbeed u ah ama base u ah waa inaad mar walba ogaataa toolka lagu cabirayo. tusaale ahaan kale haddaad poverty ka hadlayso ama si kale haddana socio economic status aad ka hadlayso xaalad dhaqan dhaqaale oo kale aad ka hadlayso waxay leeyihiin tool lagu cabiro. marka waxaa muhiim ah inaad wax walba toolkiisa ogaato oo markaad isku daydo sidee baad ku ogaan doontaa. waxaan jeclahay inaan muhiim ah markaad ka hadlayso inkastoo aan jeclahay inaan kaga hadlo qaybo kale haddana waxaa muhiim ah xilligaas oo kale inaad dib ugu noqoto researchada kala duwan ee area-daada khuseeyo simply sida ay xogta usoo diyaariyeen. marka halkaa waxaad ka fahmaysaa tooliska ay isticmaaleen haddii u dhow yahay adiguna kuwaas oo kale ayaad kasoo daraasayn kartaa. daytadu haddaba marka laga hadlaayo ilaa 5 qaybood bay u qaybsantaa. 5 qaybood ee loo kala qaybinayo waxay inta badan la xidhiidhaa waa waxaan loo yaqaano social science. social science-ka daytooyinkooda ilaa 5 qaybood bay qaybsantaa. kooxda koobaad waxaa la yiraahdaa ama dabeecadda koobaad ay leeyihiin waxa weeyaan waa data la xidhiidha individual characteristics ayaa lagu baarayaa dabeecadaha tusaale ahaan ashkhaasta ka tirsan bulshadu ay leeyihiin. marka waxyaabaha la baaraya waxaa ka mid ah waa demography baa la baarayaa waxaa la baarayaa socio economic characteristics oo macnaheedu yahay haddaad maqasho tusaale ahaan demography waa xogtan tusaale ahaan qofka ku saabsan magaciisa male female waxyaabaha uu yahay sexiska ka hadlaya. socio economicana waxyaabaha looga jeeda macnaheedu waxa weeyaan waa dhowr waxyaabaha ay ka kooban tahay socio economic waxaa ka mid ah tusaale ahaan oo kale educationka income-ka occupationka inta saddexdaas oo dhan inta badan waxyaabaha waa socio economic factorska ay ka mid marka waa tusaale ahaan oo kale qoyskan marka la doonayo in la cabiro aqoontiisa waa in la eegaa maxaa la dhahayay income-ka la eegaa parental income parental education waxyaabaha kale muhiimka waxa weeyaan parental involvement ayaa muhiim. marka qolada koobaad waxaa la yiraahdaa individual characteristics marka waa data si gaar ah loogu eegayo shakhsiyaadka yacni dabeecadaha ay leeyihiin memberska society-ga targetka ku ayaa doonaysa. qaar kale iyagu individual kama hadlaan laakiin waxay ka hadlaan waa behavioral characteristics. marka haddii behavioral characteristics macnaheedu yahay waa research aan individual ka hadlayn laakiin ka hadlaya attitude aragti ma aqoon ma opinion knowledge maxaa la dhahaa kale waxaa soo geli karaa feeling waxaa soo geli karaa tusaale kale waxyaabaha value-ga ay dadku ay qiimeeyaan sida kaltirada kala duwan symboliska waxyaabaha ay dadku markaasi caadadka u ah. marka researchka noocan yahay wuxuu yacni description ku samaynayaa oo eegayaa attitudeska halkuu kii kale eegaya individual statuska oo ay tahay tusaale ahaan oo kale da-dooda aqoontooda maxaa la dhahay dhaqaalaha ay sistaan aqoontooda halkay taagan tahay waxyaabahaasoo kale uu description ku samaynayo. kani laakiin wuxuu ka hadlayaa waxyaabaha la xidhiidha weeyaan aragtida ama human cognitive-ka waxyaabaha fikirka iyo aqoonta la xidhiidha. marka ma focus gareynayo dadkan maxay haystaan maxaana haysan aqoon ma leeyihiin ma laha keliya wuxuu ka hadlayaa attitude-ka dadkan sidee bay u fikiraan waxaan maxay ka aaminsan yihiin waxaan maxay ka aaminsan yihiin waxyaabahaasoo kale ayuu focus ka saaraa. organizational data-hu inta badan iyadu waxay ka hadashaa waxyaabaha business-ka waxyaabaha aadka ula xidhiidha oo data noocaas weeyaan tusaale ahaan oo kale business-ka company-ga growth intee lagu sameynaya ama waxaan muxuu growth intee lagu ku jiraa waxyaabaha ka hadla waxaa ka mid ah performance-ga oo kale shaqaalaha oo kale lagu cabiri karaa employee status oo kale laga hadli karaa haddii tahay performance-gooda haddii ay tahay motivation-kooda iyo waxyaabaha la halmaala. marka waa kuwa ugu muhiimsan bay jirta. territorial data iyadu waa data la xidhiidha sida magaca kaaga muuqata waxay leedahay geographical character marka inta badan location ayaa ama comparison lagu sameynayaa ama descriptive lagu sameynayaa oo la describe gareynaya marka waa data la xidhiidha deegaano kala duwan iyo magaranaysaa dabeecadahooda waxyaabahaasi lagu baaro weeyaan. intaa markaynu kaga nimaadno waxaan doonay datadu laba ayay u qaybsantaa marka la kala eego xagga primary yani xagga originality-ga oo primary data iyo secondary data saalan kaaga muuqata. haddaba primary data maxay tahay? primary data waxay tahay waa any data taas oo qofka cilmi baaraha ahi uu isagu laftiisu diyaarsaday. macnaheedu halkaa waxa weeyaan waa data aan hore u diyaarsanayn laakiin uu researcher-kan isagoo ku base gareynaya research-kiisa ku base gareynaya waxa uu danaynayo inuu ku cabiro ayuu waxa uu u diyaarsanayaa data uu xogtii kusoo urursado. marka datada noocaasa
ee uu researcherkan samaystay oo uu markii koowaad isagu sameeyey diyaarsaday kuna base gareeyey researchkiisa ku base gareeyey waxaa loo yaqaanaa preprint data taa macnaheedu waxa weeyaan cid hore uguma horreyn waa mid isaga copyrightkeeda iyo lahaanshaheeda uu leeyahay iyo isticmaalkeedii koowaad daytada noocaasa haddii uu researcherkaasi diyaarsado dabeetana uu xogtiisii iyo researchkiisii ku samaysto dabeetana uu sidaa hawshiisii ku dhamaysto haddii qof kale u yimaado daytada iyadoo already diyaarsan dabeetana uu isna ku isticmaalo ujeedo uu leeyahay ama research ha noqoto ama wax kale ha noqotee inta badan research weeyaan baa waxaynu ka hadlaynaa uu u isticmaalo daytada noocaas waxay noqonaysaa waa secondary data sababtaa qofkan labaad isagu ma diyaarsan already waxay ahayd dayto prepared oo qofkan uu diyaarsaday oo available ayahay marka haddii primary ay tahay form badan bay ku timaada waxa ugu aansan questionnaire-ka observation-ka interview-ga waan ku hadli doonaa saddexdan item xagga dambe ku hadli doonaa secondary data haddaba maxay tahay secondary data waxa weeyaan waa data already la diyaariyey ama researcher kala diyaariyey ama waxa diyaariyey urur baa diyaariyey sida tusaalahaan ururada aadka lagu kalsoon yahay xogta ay diyaariyaan ay ka mid yihiin ururada tusaalahaan oo kale qaramada midoobay hay'ado dawladeed adigu ururo leh kalsooni lagu qabo xogta ay diyaariyaan iyo shakhsiyaad cilmi baarayaal oo lagu kalsoon yahay xogta ay diyaariyaan marka any research uu qof kale diyaariyey oo already prepared ahayd dabeetana aan u imi aniga iyadoo diyaarsan kadib aan qaatay marka haddana aan leeyahay aan ku busheeyo aan ku isticmaalay aan u samaystay daytada noocaasihi waa already prepared talaan kale waxaa kamid ah xogaha ay dhakhaatiirta diyaariyaan ama business ay diyaariso available marka u timaado dabeetana ku bayskaraysa waxaagii kaasoo kale noqonaya marka labada eri baa ku kala cadaynay primary inay tahay mid asal oo markaa diyaarisay ama mid secondary oo aad qof hore uu diyaariyay dabeetana aad u isticmaashay purpose-ka marka laga yimaado halkaa haddaba daytooyinkaa kala duwan afar qaab unbaa loo soo ururiyaa marka buugta researchada qaarkood way ka yar badiyaan oo waxyaabo kale ayay ku soo dardaraan laakiin afartan ayaa la isla waafaqsanyay inay yihiin the most common data collection methods ama instruments afartan instruments questionnaire baa lambar koowa marka kala horumarintan muhiim aha oo sida ay u kala horseeyeen uma kala muhiimsana dhankay doonaan bay ka iman karaan laakiin halkan waxa ii ah aniga questionnaire and survey questionnaire haddaba muxuu yahay questionnaire and survey waxa weeyaan inta badan waxaa isticmaala quantitative research-ka ayaa isticmaala marka waxa weeyaan waa warqado aad ku qortay su-aalahaasi waxay yeelanayaan inta badan alternative bay yeeshaan waxay sidoo kale noqon karaan items bay noqon karaan ama statement leh laakiin likely scale-kii sida agree disagree kuwaasoo kale leh marka waa su-aalo aad already badanaa jawaabahoodii soo diyaarisay dabeetana aad u geynayso qofkan ka qayb qaada subjectkan ka qayb qaadanaya cilmi baarista ka qayb qaadanaya dabeetana aad xogtii hadhowna analyse garanayso marka formkani boqolkiiba boqol waxaa isticmaala researchada ka yimaada quantitative researchka ayaa isticmaala surveyguna kanunbuu kusoo dhaweeyey laakiin labada eri way kala duwan yihiin marka la joogo inta badan caalamka researchka marka la joogo iyo buugta kala duwan oo survey ayaa caana survey baa broad ah baan ujeedaa marka surveygu waxa uu isticmaalaa questionnaire marka mararka qaarkood waxaad arkaysaa survey loo isticmaalayo questionnaire marka just waa seven marka mararka qaar waxaad arkaysaa tusaalahaan kale researchka waxaa lagu soo diyaariyey survey design wuxuuna maray questionnaire sidaa daraaddeed questionnaire-kii marka la joogo halkan inta badanba sida caankaaba macnaheedu waxa weeyaan questionnaire-kani was set of group was set of questions provided by the researcher oo uu kaga soo ururiyey xogtii dadkii sambalka u ahaa waxaa laga yaabaa markaa inuu design ka soo dhigtay survey design sidoo kale waa la odhan karaa surveygu waa questionnaire inta badan laakiin inta badan surveygu waa very broad marka la barbar dhigo laakiin anyhow waa isku mid waxaana isticmaala quantitative research waayo waxay maraa oo lagu analyse garayaa waa statistical ayaa lagu analyse garayaa interviewgu wuu ka duwan yahay kuwa interviewgu sida kaaga muuqata magaca yani waa waraysi qualitative research-ka ayaa isticmaala ama waxyaabaha inta badan researchada lagu soo ururinayo human behavior-ka human feeling thinking idea opinion waxyaabahaas oo kale markaad doonaysa inaad ururiso waxaad interview baad isticmaalaysa marka interview muxuu yahay interview wuxuu dadkii sambalka kuu ahaa halkaad warqada u qaybin lahayd ay ku qoran yihiin question waad u tegaysaa waad soo waraysanaysaa ama recording isticmaal ama video isticmaal ama qoro hadba sida wixii aad awoodday kuu fudud baad isticmaalaysaa
marka interviewga laftiisu su'aalihiisa ama waa la sii qortaa ama wax kamid ah baa la sii qortaa ama system isku dhafa baa la sameeyaa marka inta badan isagu waa interview weaknesskiisa waxaa kamid ah tusaale ahaan oo kale waqti fara badan ayuu ka qaataa qofka researcherka ah waxaa laga yaabaa tusaale ahaan 20 qof hadda doonaysa interview garayso in meelo kala duwan ay doon yihiin ku kala nool yihiin isla markaana ay yihiin sambalkaagii hadhow analyzation kara in codingkooda iyo habeyntooda ay waqti badan ka qaato laakiin waxa uu weaknesska ugu weyn ay leeyahay disadvantage ugu weyn ay leeyahay waxa weeye يعني time fara badan ayay kaa consume gareynaya halka questionnaire-ku bias uu yeesho biaskaasi ama wuxuu ka iman dhinac fara badan ka iman karaa waxaa jira qolo kale oo la yiraahdo focus groupka sidoo kale waxay isticmaalaan qualitative research baa la isticmaalaa marka focus groupkan waa group gaar ah oo yani criteria-daada kaaga soo dhex baxay ayaad soo fulanaysaa waad yeeraysaa waxaad usoo fariisanaysaa camal qaab dood wadaag oo kale ah marka afar shan qof lix qof tiro way noqon karaan tirada aad ugu baahantahay hadba oo ay number macquul ay yihiin marka markaad isugu yeedho kooxda dood wadaagga ahi waa focus group su'aalihii baad weydiinaysaa iyagaa isweydiin kara way doodayaan mawduuca aad adigu soo diyaarisay already ayaad kala doodaysaa dabeetana xogta ka soo baxaysa ayaad record garayn ama qoraal ku samayn ama video ka samayn marka focus group baa leedahay waa qaab ka mid ah qaababka data collectionka loo sameeyo focus groupkani maaha quantitative research haddaba disadvantage-ka uu leeyahay waxaa kamid ah tusaale ahaan oo kale in marmarka qaar dadkii dooda ku jiray ay sheekadii ka dhamaqdo ama maxaa la dhahayay mid dadka qaar ay ka baxaan focuskii dadka qaar uu xog badan u hayo qof kale ka dhamqiyo oo ka duwo markiiba hadhowta analyzationkiisa qodobka labaad ee disadvantage-ka weeyaane ay yeeshaan waxa la yidhaahdo dhib fara badan aad kala kulanto markaad analyzation ku samaynayso kaasoo kale markaasina waa mid observationku isaguna inta badan waxay isticmaalaan qualitative research marka saddex inta qualitative ayaa wada haddaba observationku wuxuu yahay observationku waxa weeyaan tusaale ahaan oo kale waxaan u bahay waqtigan oo kale aan hadda videogan duubayo bilka badan 10kii dambe lagu jiraa marka inta badan dadka Soomaalida waxay caan ku yihiin inay bacadlayaasha iyo meelaha dharka laga soo gato iyo dhulka dukaamada dharka ay ku yaalin bay tagaan waxaa sidoo kale jira xaalad dunida xaalad baahsan oo xanuunadan coronavirus-ka oo kale markaad suuqaan u baxay waxaan soo indheeyay bal dadku inay qaateen ma garanaysaay wacyi fariimihii ay dowladdu bixinaysay ahayd kala fogaada maxaa la dhahay face maskigi xidha social distancing ma sameeyeen waxaan doonayaa kale inaan observation ku sameeyo soo indheeyo dadku sidii marka loo eego bishii hore rabadaanteedii iyo tan keebay soo kulmeen marka in huwa observation baa leedahay marka observationkaasi inta badan waa inaanu kaa noqon selective observation oo aad markaad sidaa u gashay un areadii dukaamada ay ku yaalaan dharka laga dintay ama bacadlayaashu aad aragtay afar qof oo maxaa la dhahay face mask sita oo spacekeeda sameeyey dabeetana aad tiri dhammaan dadka magaalada ku nool waxay qaateen fariimihii ay dowladdu iyo wasaaradda caafimaadku bixinaysay ahayd kala fogaada face mask xidha saasoo kale qaabkii isu salaama loogu talagalay haddana waxaa laga yaabaa inaanay taasi jirin marka selective observation baa lagaa waa inaad kaasoo kale ka taxadirtaa inahu afartan hab questionnaire hadduu yahay quantitative ay isticmaalaya surveyga laakiin saddexdan kale quantitative ay isticmaalaa haddaba saddexdan keebaa ugu wanaagsan weeye su-aashu inaad xogtaada kusoo ururiso horta waxay ku xidhan tahay methodka aad marba isticmaalayso iyo methodologyka aad isticmaalayso ayaa ku xukumaya haddii aad quantitative isticmaalayso waxaa muhiim ah inaad questionnaire mar walba isticmaasho oo dhisaynkaagu uu yahay haddii laakiin aad qualitative isticmaalayso saddexdan baad isticmaalaysaa laakiin saddexdaaba labadaa hadda midka ugu wanaagsan waxa weeyaan adigoo isku dara oo tusaalahaan kale questionnaire plus interview questionnaire plus observation focus group plus interview saasoo kale isu raacay laakiin markaasoo kale xaaladdu markay taagan tahay yacni researchka aad isticmaalaysaa methodka aad isticmaalaysaa waxa weeyaan waa mixed method oo waxaad isku dartay qualitative iyo quantitative umalayn maayana in undergraduate uu qaabka isku daray waayo waa research ah kanoo kale qof dad aad advanced u ah oo dad dhan isugu tagay laakiin markaad tahay tusaalahaan kale haddaad qualitative tahay waxaan kugula talinayaa inaad isticmaasho interview aad isticmaasho oo aad dadka soo wareysato observationku waayo waqti fara badan buu qaataa waa inaanad waqti badan buu kaa qaadanayaa inaad soo observation waayo mar qura maaha inaad mar qura observation focus groupkaas oo kale waxaa laga yaabaa marmarka qaarkood inaad dadkii isla weydo caqalado kale midna ay kusoo wajahdo
laakiin waxa very important ah haddaad qualitative isticmaalayso inaad interview isticmaasho haddii aad quantitative isticmaalaysana questionnaire isticmaal waxaan aad deeply uga sii hadli doonaa sida loo design gareeyo questionnaire mar labaad aad baad u mahadsantihiin haddaad channelka ku cusub tahay waxaan rajaynayaa inaad saari doonto subscribe